السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا بالشوين الصوماليين ملك سودنا دعلة ذلك شوكتان وإبراهيم نور سجالة أو تقننا وسجالة شيكي channel كنا وصلنا وذا فيلمس فلان channel كذا كعصب تسبسكرايب نوصار جنبالير كنا فرو سيادول السعودية وحيابا بدن أو كسبسن تاريخ ذا كان هو يو والله يا أبوي إني كده هنتاي أما أذن كلوجين تاريخ ذي هو يتنادى شوكتبا أيام البرنامج كان كسوق هذا عربا maanta waxaan ku qaadan doonaa hadduu alla idmo ama aan ku qaala dhigi doonaa dalka Soomaaliya badkiisa inta uu leeyahay tirada dadka ku nool iyo sidoo kale magaalo madaxdiisa oo ay Soomaaliya badan wada tafaan sidoo kale gobolada siyaabihii xornimada ku qaateen iyo sidoo kale ahaan jiray gumaystuhu markuu wadanka haystay ayaan ku soo qaadan doonaa ku soo dhawaada barnaamijkeena asxaabay barnaamijkan gudo galeynaa badka dalkeena Soomaaliya ayaan ku hormarayna badka markii lagu leeyahay waa gobolka waa deegaanka inta uu leeyahay size ahaan ayaa laga hadlayaa badka dalku waa 6,335,541 kilomitir oo square ah ayay Soomaaliya badkeeda ayuu leeyahay tirada dadka waa 13 milyan oo qof magaalo madaxda waa Muqdisho sidoo kale الحمد لله دين أيان هيسنا دين تنا هيسنا دين تنا الإسلام الدين تكريه أو شرته وحق آخرية دون بالقول لي بانه إلهي سبحانه وتعالى الله نقدر كل انت كل نقول عليه كل انت وأنا نقول عليه كل انت الله نقدر إلهي سبحانه وتعالى تايا كبرينا ويدي سنينا سيدو كلا دل كلام جعبه هاي جمهورية ديمقراطية الصومالية وحيد عذاب جغرافي أهان مركز الله قيمة أما جغرافي أهان لا شيء الرأك صوبح جيسك أفريقيا أيد عذاب سيدو bari waxa ka xiga badweynta Hindiya sidoo kale galbeedna waxa ka xiga dalka Itoobiya koonfur galbeed waxa ka xiga dalka Kenya waqooyina waxa ka xiga dalka Djibouti dalku wuxuu leeyahay xeeb dhererkeeda lagu qiyaasay 3,333 kilomitir Afrikana Soomaaliya ayaa ugu xeeb dheer marka laga reebo dalka koonfur Afrika inta kale ayaa ugu xeeb dheer waxa la dherer eg tahay marka la isku daro xeebaha dalka Faransiiska iyo Talyaaniga ayay la dhereeragtaa caasimadiisu waa Muqdisho tan labaadna waa Hargeysa tan saddexaadna waa Kismaayo tan afraadna waa Burco tan shanaadna waa Baydhabo dalku markan caasimadan ku kala tirinayo hadda ma aha laakiin waa waagi hore wadanka ahaa dadka hadda meel kaste qof walba magaalo walba gaar bay u oodan tahay hadda dalka Soomaaliya guud ahaan waa sidii laakiin gudihiisa ayaa kala xirxiran weeye hamoodina dalku inuu kala go'an yahay ee guud ahaan waa wada Soomaaliya dadku isku diin waa walaalo waa isku ehel sida awgeed haddana waan yar kala duwanahay dadka wax ooga matqaana lama diidan hadda maanta inay Hargeysa caasimadda labaad ee Soomaaliya tahay Hargeysa dawadiisid waa matqaana hadal gelin maayaan guuritaanku uu ay go'een ma ahayd marka caasimadda koobaad Muqdisho tii labaadna waxay ahayd Hargeysa tii saddexaadna sidoo kale waxay ahayd meesha loo yaqaano tii saddexaadna waxay ahayd Kismaayo taafraana Burco iyo sidoo kale tii shanaad oo ah Baydhabo dalku wuxuu xornimada qaatay 26 Juun 1960 sidoo kale gobolada waqooyi ee Ingiriisku guumaysan jiray 1 Luulyo ayay 1960 waxa xornimada qaatay gobolada koonfureed ee Talyaaniga guumaysan jiray 1 Luulyo 1960 waxa midoobay labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur shirki guumaystayaasha Afrika ee lagu qaybsaday Afrika ee ka dhacay Berlin ayaa dalka Soomaaliya loogu qaybiyay 5 qaybood ama 5 gobol 5 qaybood ayaa loo qaybiyay oo kala ahaa gobolada waqooyi oo loo dhiibay guumaystihii Ingiriiska iyo sidoo kale gobolada koonfureed oo loo dhiibay guumaystihii Talyaaniga iyo sidoo kale xeebta Soomaaliyeed ee Djibouti oo loo dhiibay gumaysigii Faransiiska NFD sidoo kale waxa loo dhiibay gacanta Kenya ayaa loo gacan geliyay sidoo kale iyo gobolada Soomaali galbeed oo gacanta loo geliyay dawladda Itoobiya 5 gobol
waxaa la isku yiraahdaa shanta gobolba waxaa la isku yiraahdaa shanta Soomaaliya 27 June 1977 ayay Djibouti-na xornimadeeda qaadatay. Soomaali galbeed iyo NFD wali waxay ku jiraan gacantii gumaystayaasha oo wali iyagu xornimo sax ah ma ayna qaadan. asxaabay waqtiga inagu yar awgiis barnaamijkeena caawinta ayaa ku soo gabagabaynaynaa. waa inoo kulanka dambe hadduu eebbe idmo waxaan idinkaga tegayaa salaamaha ugu qiimaha badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaa walaalayaal naga xasuusina oo codsina naga inaad sheergaraysaan fiidiyoyadan. waxaa laga yaabaa dhalinyar badan oo aan cilmi u lahayn dalkeenna hooyo iyo taariikhiisa inay ka faa'iidaystaan mawduucan oo magaciisu yahay ama ciwaankiisu yahay bara dalkaaga hooyo. hadduu ahaa nidaamyadii hore ka jiray iyo nidaamyada hadda ka jiraba waanu ku soo qaadan doonaa hadduu alla idmo samawada films. aad iyo aad baad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.